لأولي القلوب والأبصار تبصرة لأولي الألباب والاعتبار ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال بريتولو بشو تهاي شان يلا تنكي ديسمبر ومالينتها نصاردو أي عيدان وندبال دقان عيدا وإليه النبي الله عيسى عليه السلام بعد الشيء تاريخهانا علماء مركي كورميان إن ميهين مالين والنبي عيسى درشي أول عيد أي غير يرب وعيدان بيهان شرتي إلهي آمين سنايين إنو يهي إله عدعاطة وآي وقت يضنو كالي dadka reer galbeedka cadceed ayaa ku yaray kadibna ilaahay si caabudi jireen maalintan ciid bay ka dhigteen culimadoodii kiniisadaha ayaana ugu raray maalintan markay arkeen dadku inay maalintan aad u weyneeyaan oo yiri nabi ciisayna maalintan u dhashay culimaduna way ka waramaano waxa kamid ah kutubta ay culimadu kaga warameen kitaabka leeraa al-jawaab as-sahih liman badala diin al-masih sheekh islaam ibn taymiya uu qoray ولا ليال عيدو أما دين ولا بعيد بلاد عيدو هنا ووحيابها ديمها لغو قرتيقوا وين ولهذا يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يسأل الله يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكيلها إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا مالين يسأل أبو بكر لباها بلادا يريار ودبال دقيو هيسي ربي إنو كتشوشيو ayuu ku yiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam Abu Bakar isagoo ishaaray inuu iska daayo qoom walaaba ciid buu leeyahay maantana waa maalinteenu ciideyn saasoo kale markuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yimid magaalada Madiina sida Aisha ay warinayso iyo saxaabo kaleba reer Madiina waxay lahaayeen laba maalmood oo ciidaan oo u dabaal degaan markuu nabigu weydiiyayna ay u tilmaameen jaahiligiina ciidu ahaan jirtayna wuxuu ku yiri in allaha qad abdalakuma bi khayrin minhuma ciidul fidr wa ciidul adha ilaahay wuxuu inagu bedelay laba ciidood oo ka fadli badan oo ah ciidul adhada iyo ciidul fidriga islaamkuna labada ciidood buu leeyahay hal ciida soo raacdo waa ciida wiiga oo maalinta jimcaha ah ciiduna walaalayaal waxyaabaha lagu garto diimaha ولهذا أما شعائر تواوين ديمها لغو يقانو إلهينا القرآن كوحو كتلمامي إلا وينيو وحيابها شعائر تا دين الإسلام كاللغو يقانا إنا يكمتها وحيابها تدك إيمانكو ذكروا قاضية أما تقوى القلوب إلهي كعبري ومن يعدم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي لي ولا ليال دين الإسلام كو ويكدك تيدادك مسلمين تي إنا يتغان عيدها قالة أو يكغيب قاتان ولهذا بقى إلهي مركو ورمي سورة الفرقان وكغو ورمي صفات كددك مؤمنين تام عباد الرحمن كوحولي والذين لا يشهدون السورة وإذا مروا باللقو مروا كراما عباد الرحمن كاسفوين كودا حكامي إناني تغين السور أو مجاهد بن جبر أو أها تابعين أو كفصري أعياد الكفار وحنا كمدها أرطيدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه سور كآيات اللي شيء يوا عياد الكفار كلي إلهي لي هيدتهم وناكسني متغان ولا ليال كقيب قال كعيدها قالدا أما مقرن يسايي إن لغو تاغيرو أو لغو عاويو أما لا راعو أما لغو تهنيديو علماء الإسلام كانوا يكدقي جرين قديما وحديثا هل فتوى أيان أخري لها أولي هاي إمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بالحكم كده وحلي هاي ابن القيم وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه إن ليسكو تهنيديو لو تهنيديو قالدا waxyaabaha gaalnimadooda gaarka u ah ee shacaa'irta u ah oo waxyaabaha la isla waafaqsan yahay buu leeyahay sheekhu inay xaraan tahay sida inuu lagu tahniyadeeyo ciidahooda iyo soomkooda oo la yiraahdo ciidun mubaarakun calayk
ama kelmado u dhigma oo lagu tahniyadeynayo ciidahooda sheekhu wuxuu sii leeyahay فهذا إن سلم قائله من الكفر فهذا من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بالسجوده للصليب ninka tahniyada ugu sameynaya gaalada ciidahooduna hadduu ka badbaado gaalnimada wuxuu ku dhacay muxaramaadka waaweyn waayo tahniyada ciidahooda lagu tahniyadeynaya waxay mansilo la tahay in lagu tahniyadeeyay sujuuda ay u sujuudayaan saliibkooda bal dhalika a'zamu ithman 'inda Allah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bi shurb al-khamr wa qatl an-nafs wa irtikab al-farj al-haram wa nahwi taasoo iyaduna ka weyn inaad ugu tahniyadeyso khamri uu cabay iyo sina uu ku dhacay iyo qof uu dilay inaad ugu tahniyadeyso sujuud ayaa ka weyn inaad ugu tahniyadeyso munkaraadka kale ciiduna cibaado weeyaan iyaduna dambiga inta leeg ayay leedahay wuxuuna si raaciyay sheekhu wa kathiirun mimman la qadra lid-diin 'indahu yaqa'u fi dhalik dadka sidaa sameeya ee gaalada ciidahooda iyo cibaadooyinkooda ugu tahniyadeynayaan waa dad diinta islaamku aanay agtooda qiimo ka lahayn walaalayaal waxa culimadu ka hadlayaan in laga qayb galay iska daayay in lagu tahniyadeeyo inay tahay shay muharrama oo aan ku banaanayn diinta islaamka qofka islaamka walaalayaal inta adduunka la nool yahay gaalada waa la tacaamuli karaa waxba la wada dhigan karaa waa la wada shaqaysan karaya laakiin waxa muhiim ah qofka muslimkii inuu mar walba ka kasbado gaaladu inay ku ixtiraamaan diintiisa oo aanu kala khajilin waxyaabaha diintaadu sheegaysana aanad cidna uga habran nabiyullaahi maxamed haddaan tusaale soo qaadano nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarka markii uu baycada la galayay ay gacanta u soo taageen wuxuu ku yiri inni la usaafihu nisaa anu dumarka ma salaamo qofku inuu xaqa ka khajila ma maanta hadii nin gaala oo saaxiibtiin ama hawl ma garanaysaa ay shaqo iyo wax suuqin keentay uu kurayga la soo qayb gal wax diintaada khilaafsan ma aha inaad ka khajisho waa inaad u sheegto tiraado anu islaam baan ahay ciid baan leeyahay ciidani waa ciid dad kale diintoodu ay leedahay walaalayaal dadka muslimiintii inay ciidaha iskaga fogaadaan baa loo baahan yahay oo weyneeyaan ciidaha islaamka oo maanta aad moodo in dadka muslimiinta ciido kale ay kala qiimo badan yihiin waxa kamid ah iyaguna ciido badan oo dadka muslimiinta ay soo dariyeen aakhir zamaankan oo ay kamid tahay ciyaadul buldaan kala sameeyo in wadan walbaaba uu ciid gooniya sameesto diiniyana shay aan banaaneen ay tahay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ansaar ciidahoodii hore lahaayeen buu deyn lahaa hadii ciidu aan cibaado ahayn oo ciida cid walaaba ay sameeysan karayso ciidahan Soomaalidu ay dhigaan ay ku maman yihiin midda kale walaalayaal maxaa la sameeynaya ciidahan waa la isku imanaya rag iyo dumar baa isku imanaya heesaa la qaadaya munkaraad baa la sameeynaya culimadu waxay ka digaan wax kale iska daayo ciidaha gaalada markay gaaladu u baxayaan ay u dabaal degayaan maraakiibta iyo gawaadhida iyo waxay raacayaan adigu xitaa hadaad xaajo kala leedahay inaad ka fogaato waayo waxa suurtagal ah xumaantay sameynayaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nacdashiisa iyo ciqaab lagu soo dejiyo adigana taas ay kugu dhacdo walaalayaal aynu iskaga fogaan waxaan kala raacin lahaa acyaadul buldaanka wadan walbaaba ciidu sameysanayo wax diinta ku sugan iyaduna maaha hal iska daayo walaalayaal kuwan la leeyahay eedin May iyo kowda Luulyo iyo wax hagaagsan oo diinteena khilaafsan wax hagaagsan maaha wax diinteena khilaafsan qofkuna cisiye sharaf ku leeydiin Umar ibn al-Khattab waa kiilaha nahnu qawmun na'asana Allah bil-Islam idha ibtaqayna biqayrihi adallana Allah waxaan nahay qoom Ilaahay ku ciseeyay diinta Islaamka hadaan ka dayno cisigaana waxaan diinta Islaamka ahayn Ilaahay uu naduleynaya midda kale waxa la qabanaya hore inuu sheegnay waa munkaraad maantana waa suurtagal dad muslimiini inay iska daaye ay iyagu gacan ka qaataan haday tahay soo qaban qaabinteedii wax ku bixin kharash haday tahay Ilaahayna uu Quraanka ku leeyahay wala tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan xumaanta iyo munkaraadka iyo cudwaanka ha iskugu kaalmeeyna ugu dambeyn waxaan ku soo koobi lahaa iyadana waxaan raacin lahaa mid kale jirto ciid gaalada lagaga daydo la yiraahdo happy birthday iyaduna wax islaamku yaqaan ma
inaad adigu ciid maalin ku gaara samaysato iska daaya nabi maxamed mawliidkiisii la dhigayay bay culimadu ka hadlayeen yiraahdeen waa shay muxtaso bidca oo ka digaan oo yiraahdeen nabiguna muu ogeyn wax diinta ku suganna ma wax diinta lagu soo kordhiyay tii nabiga loo dhigayay baba culimadu ka hadlaysaa ayadu taada maxaad u malay mid kale xagaa laga keenay waa gaala laga daynay gaalada in lagu daydaana waa xaaraan nabigu waa kiilaa man tashabbaha biqawmin fa huwa min laysa minna man tashabbaha biqayrina riwaayad kale qofku cid isku ekaysiyo buu ma garanaysaayay la mid qofkii aan cid aan anaga ahayn isku ekaysiyaana cidaas ka mid yahay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam walaalayaal gaalada inaynu ku dayano ma inaga loo baahan yahay gaaladu inagu daydaan dadka muslimiinta hadalka ilaahay dhageystaan wala tahinu wala tahsanu wa antum la'law haniyad jabina ma garanaysaayay hana murugoonna idinka sareeyo buu ilaahay leey ummadaha oo dhan buu ilaahay naga doortay walaalayaal waxa loo baahan yahay inagu ciisi dareeno diinteena ku faano maalmuhu ilaahay neeri weyneey aynu weyneyno waxa laga faa'iideeyaa maanta 4 saacadood 5 saacadood oo meel taagneed cadaabna kaaga dambeeyo ilaahay maad khayaameyn karaysa innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahil kaafiriin amhilum ruwayda bu ilaahay leey ugu dambeyn walaalayaal waxaan nugula dardaarmi lahaa inaynu diinteena ku faano diinteena aynu sharafta ka raadino ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri walillahi al-izzatu wa lirasuuli wa lilmu'miniin walakinna al-munaafiqiina la ya'lamuun عيسى iyo sharaf waxa iska leh ilaahay rasuulkiisa muuminiinta laakiin munaafiqiintu garan maayaan walaalayaal diinteenu ciisoo dhan ku dhan yahay in diinteena ku faano korna aynu qaado maalintaad bilowdayna diinta ilaahay u gargaarto ilaahayna ku gargaaray subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليه